gabar aad u qurux badan oo gabdhihii Carbeed ka mid ah magaceedana Canaaq la oran jiray xilligii nabigana noolayd ayaa wax isjeclaayeen nin Marthad la oran jiray oo saxaabi ah baa la yidhi Marthad wuu soo islaamay islaamkiisuna wuu fiicnaaday laakiin gabadhu gaalnimadii baad ku adkaysatay baa la yidhi kadibna Marthad wuu hijrooday oo Madiina u aaday laakiin gabadha aad buu u jeclaa markuu Madiina tagay ayuu wuxuu bilaabay in uu Makka intuu yimaado dadka muslimiinta ee la cadaabay la dhibaataynayo inuu intuu ka kaxeeyo Makka sida magafa ahaan uu duurka mariyo uu Madiina geeyo marka marba waxa ballasaayay in aad u buuran oo dhulka kala garanaynin bay warmartay oo soo doon marka magaalada Makka ku soo noqday habeen buu soo galay asagoo afka soo duubtay oo yaa lagu garan leh xilli qamarkuna uu sheeytoonaadka u yahay day cadaan ay tahay buu soo galay asoo luqluqyadii Makka saa u dhaxmaraya ayaa waxa ka soo horbaxday gabadhii Canaaq la oran jiray quruxda badnayd ee laakiin zaaniyad ay ka soo horbaxday baa lidii markaasay garatay my ex boyfriend alla waa xariifkaygii hore warmartado warcaawa waa soo caaw guriga ku geenaya wax dabtaan lagu siinayaa waa lagu kala kicinayaa wax walba lagu qalayaa soo dhowbatay lidii aad bayna ugu hilowday baa lidii markaas waxa uu yiri qalbigayga hal waxda ku jiray uu yiri halka waxna waa Allah subhanahu wa ta'ala qof kale ma soo galay ilaahayna ma khilaafayo markay inta ay ka maqashay ayay niyad jabtaan yiri kadib inta afka furatay kufaar quraash waxa ku tiri warnin waxa jira dadka idinka dhuumanaya ka xeeyo howlaha ka shaqeysa halkan ku jira kaalay qabta markaas la cayrsadaa la yiri soo ordaayay ayaa wuxuu tagay yiri Madiina ku soo noqday markuu Madiina ku soo noqday ayuu nabigu عليه الصلاه والسلام يا رسول الله رسولك ilaahayo ankihu canaaq laba jeer buu wadiy Canaaq ma guursan karaa ma nikaaxsan karaa ma ii banaan tahay nabigu umuusan jawaabin عليه الصلاه والسلام ka amsi baalidi kadib baa waxa soo degtay aayadan الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك إمام الترمذي بحديث غريب كسورنا إياه إلهي وحول الزاني وما قرص قف عن كاهن زانية زاني دون ما قرص قف عن كاهن زاني أما قال ما أهل dadka wanaagsan way isku ursadaan dadka zunnaad aan iyaga isku ursada aayada marka oo maqlay waa uu ka tanaasulay baa lidii jaceelkii iyo kuweelkii kurbadii haye halkii kaga dhaqaajiyay qofka waxa idin ka dhaxeeya haduusan ilaahay aqoonin haduu zaani yahay haduu shaarib yahay haduu qof umada caayo u yahay haduu qof afxu yahay haduu qof akhlaaq xun u yahay haduu qof balwada xun la tagay u yahay haduu qof aanba aakhirab xusin u yahay qofka asaga isma qalantaan adiga qofka ilaahay ku xiran ee ilaahay rajo kale ee aakhira rajo kale qofkaas qofkaaga am xayalay الطيبات للطيبين بالله سبحانه وتعالى كب الطيبات طيبات بليه قبل طيبات كب خبيثات كأهل منكم قبل خبيثين بليه ساس درت دوح على قربها قفكوا إن وراسده قف وناكس المركز تئن وراسده قف صاحب الصلاة صاحب أذكار صاحب إيمان صاحب صدقات صاحب العفو صاحب البر صاحب الصفات إنه قف راسده لو بهيه جعلك إلهنا وإنه جعلك استكاجوين هذا 5 minutes أما 5 second زنا 5 second oo zina ah ayaa cimrigaada faqr ku dhaxshinaysa oo caro ilaahay ku dhaxshinaysa oo naar ku dhaxshinaysa oo bal laga yaabo in cudur raba ay kugu dhacaanba ilaahay waa baq subhanahu wa ta'ala meelaha zinada loo aado iyo meelaha baadiyada iyo qoronkana ka fogow ilaahayna isku xiriir insha Allah ta'ala assalamu alaykum